عليكم ورحمة الله وبركاته. madaxda meesha isku imaatay waa ina salaam dhamaantiin. midda labaad waxaan u mahadcelinayaa arooska iyo aroosadiisa. waan u mahadcelinayaa inuu ilaahay labadiisu waa inuu ilaahay ka dhigo. magacayga waxaa la yidhahdaa Cali Maxamed Nuur, deputy governor aspirant baan ahay. waxaan u maleyn siyaasadda waxaa noo bilaabay boori maadaama la yidhi ambassador Cali Bunow bal 5 sano aan siino annagana waxaa leenahay cid baa qabtanba weli waxa baan helin. marka hadee tolnima hadee jirto 2013 ilaa had cid baa qabtan deputy way dhaaf ilaahay ciddaas ayagana safartan ha loo gurmado ha la soo dhiso. wassalaamu calaykum. Mheshimiwa Dade former Waberi MCA waka is also an aspirant in Luqo Ward. So do wadana. Marka bismillah ana waxaan ka bilaabay Dr. Abdullahi iyo Shukri ilaahay ni barakeeyo guur khayrka waa Allah niga dhigo guurka awlaad barakeysan Allah idinka siiyo. sidii wadaadada ay sheegeen waxaan intaan wali hor u sii waxaan arkayaa niman badan oo raf shaqaale badan oo county-ga u shaqeeyaan chief officers badan arkaya Harun who is also ugaas ciyaal oo baaqaani saalax arkaya director badan joogaan marka idinkama gaari kari culimo badan arkaya abtigiisa Bashir aadan inta uu fadha marka soo dhawaada insha Allah. marka Faisal Geedi ma jooga. Faisal Geedi is also an aspirant in Fafi Ward who jooga soo dhawaad. Isa who is also an aspirant in Sangailu who jooga soo dhawaada insha Allah. marka ilaahay ni barakeeyo guurka ilaahay barakeeyo Dr. Abdullahi iyo Shukri. midda kale anaga waxaan sheegaynaa culimada aan mar badan intaan platform aan joogo waxaan dhahaa kaftanka siyaasadda iyo maatida naga dhexgeli. marka taasna waan ku guurinaynaa annaga waxoogaa waan is irtijafaynaa oo waxbaa waan is xaaganaynaa laakiin maatida inay dhexgasho ma fiicno. midda kale dad baa markii anaga hadal aan ku hadalno haddii ruux hadlo qoyskii inay qabaan go-aankaas loo qaadanin waxaan dhahay nin shaksi wuxuu ka hadlo yaa qoys loo bedelin. aniga taariikh ahaan cadoo markaan iska warramo abdii buur iyo Sidiga Idris ay dhaanani oo awada waxba uma ogoshi. horta awada qaan waa awgaashi badi Abdurrahman aydi waxaan waa isdifayna ma ogi wax xumaan oo loo hayo ma laho laakiin awowga hadii 50 sano ama 60 sano la usoo raacaysi uu ku dajin waayo maxaa sameeyni. marka aan xumaan ma qabno awowga anaga waan raacayni loodiis talamogalooda saa u raacayni aan kalkaaj u ridanayna la soo fiirin waayo. niman khayr Allah siye oo reer xoolo dhaqdaan ma ilaa walaani oo bankan waaso waa ku dhacay in soo dareen xaga man aadamooyo xumaan ma dhuwaadi looda soo daajisanahay loodan hadii aan ii yeelato talmugana cadeyskiisu waan u keenay waan u celiyay irmaankooda. marka ilmale baasha la jilciyo wax xumaan oo dhaxay ma laho daaqsina ma intuu aadna anaga oo reer waa asaan ii keenay xag ma u guuray xumaan kale ma jirto baasha la jilciyo. midda kale waxaan rabnaa siyaasiyiin haddaan nahay dadka maanta sheekasha waxay dhaheen reegaaris aad ay u quruxsan yihiin niman yahow sidii khamiiskaan u qabno wadaadada naftooda ani maalin hore maraan male wax kaga sheegay oon dhahay fatwadan dad qaar la siinhayo xoolaha xaaraanta masaajidaha lagu dhisay annaga waa noola baneeyo aan soo qaadnay. marka inigana haddii noo bilowdeen waxaa fatwadaas noo siiya noo wada siiya inigana waan dhisayna laakiin inaad haddii ruux khamiis qabo oo duceynayo inay u duceysiin inigana annagana markaan sheegno haddiin fidmo way. marka iyadana taas nagala joojiyo runta la isku sheego nin kasta wuxuu meesha keenaya la weydiyo dad hataa sport pesa ku dhex jiraan jirta oo gambling waan garanaynaa. marka waxyaalahaas iyagana nagala joojiyo ummadda waan sheegaanay masaajida intii laga aadaamay sawirkooda iyo annaga saa u dhaqmayno isma laho. marka niman oo niyadda anaga aan toosino intaasaan kusoo koobi Bashir iyo Ciisana bahashan ani beecshira kale ma kasay ku geli kari bahashan 10 sano kusoo dhex jiray جليان هنا ويقصوا 50 سنة أنا ديارة ما مقلع سي بشير بين عاود عيسى وين اللويا عند تفوت كذي اللويا وفي أبو موسم بوشجع أبو إنكسر هذا أطلع تاجنو بينه أبو حول ما لولو خبط جوكا ما تسيدان ينيو أنا ده مركا أساسا كوسو جو أنت سنوقفتن أنا قوي شيء إنه ما شاء الله قطعوا يا وما ده اللي نحكي إن شاء الله.